waxaan doonayaa oon xafladan maanta ugu talagalay inaan ku shaacino ama aan ku bandhigno account aan ka furanay magaalada Kismaayo oo ugu bandhigno waxa la wixii danaynayo oo doonaya dadka masaakiinta ee Jubbaland ku nool ee naafada ah cidii wax ugu soo tuuri karta iyo cidii muxuu waxayn kartaba in aan u bandhigno caalamka walow dad badan oo naga codsaday ay jiraan inaan sameeyno barnaamijkaasi account-ka ah midka marka koowaad horta taasa barnaamijka anaga muhiimadiisu tahay waxa kale oo muhiimad yacnaan kaga faa'iideysanayna munaasabadan dadka naafada ah ee ku nool Jubbaland ma ahan dad yacnaha horumar iyo dhaqaale midna haysta guud ahaan hay'adaha ka qayb ka hawlgala goboladan Jubbooyinka iyo daliya dibadda dadka Soomaaliyeed ee ku nool intuba yacnaha waxa weeye sidii naafada Jubbaland wax tara ama wax u keena xaq caafimaad xaq waxbarasho xaq hoy xaq wax walba ma hayno ayadana waxaan ku boorinaynaa in dadkaasi aan loo daymaalaano ilgaar lagu fiiriyo maamulka anaga Jubbaland ka dawladda federaalka in qolo walbaba wixii kaga aadan ay ka qabato ayaan u bandhigaynaa khaasatan maamulka anaga waxaan aad uga codsanaynaa bacdama aan muxuu ah hadda aan anagu joogno Jubbaland oo ayaga aan hoos joogno shacabkooda iyo maatadooda aan nahay in ay naga qayb galiyaan mar walbana waan ku hadalnaa mar walbana wixii waan ku kalanaa inay naga qayb galiyaan ama ay waxna yacnaha qaybtaanada naga siiyaan maamulada ka socda Jubbaland sida yacnaha baarlamaan ha ahaado wasiirada agaasimayaasha adigu yacnaha hawlahaasi maamulka ee ka socda dhisitaanka ah in qaybta aan ku leenahay dad nool oo Ilaahay abuurtay oo haddana Jubbaland ka tirsan oo cod iyo baalkay cagbale calafba ayaan nahay in ay noogu talagalaan qoondada anagu aan ku leenahay sababtoo ah nin la yiraahdo tale hogaamiye kooxeed ama halkii hogaamiye beeleed hadduu yahay urur gaar ah hadduu yahay hogaamiye kooxeed hadduu oday dhaqameed yahay hadduu qolo kale yahay qolo horta sideedaba curyaaminta hoos u eegtaa ma jirto mar haddaan qolo qabiil hatii la yiraahdo waxba lagu soo xulayaa haddii aanan lahayn ba dad qabiil hataa nagu soo xulo oo bal dadka naafada aan qabiil ahaan qoyskanaga aan ka qoraan la lahayn oo wax ogba aysan jirin haddana maamulkii inuu na ilaawo hadayba qodayaashii ilaaween maamulkii inuu ilaawona taasi yacnaha xoogaa waxay ku jirtaa gafna yacnaha nala xumeeyay oo aan bilaadanimada nolo xusin iska daayo ehelnimo iyo deegaannimo iyo Jubbalandnimo ma aha bilaadanimada xataa waxaad moodaa in laga saarayo marka sidaa daraadeed waxaan codsanaynaa maamulka anaga sharafta la ka codsanaynaa in shaqooyinka ka socda gobolada Jubbooyinka in aan xaq aan ku leenahay laga siiyo dhowr jeerna warka waa ku celcelinay war gaaban iyo war dheerba waan ku nidhi taasi waa sida mid labaysa account-kaas halka aan ka furanay hadda kullayban waan soo bandhigi doonaa oo internetyada kulli meel walba waan soo gelinaynaa haddii Ilaahay yiraahdo asagana waxa weeye muujintiisa ayaan u soo xafladan maanta u qabanay inaan muujino cadayno una bandhigno caalamka dal iyo dibad ganacsato muxuu ah qurba joog hay'ado waxa la wixii sadaqayaal wixii wax sadaqaysanaya intaas oo dhan inaan u bandhigno ugu talagalay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كليته هذا المسؤول ونقول قلدنا مامولكو مكنول أو وحلة أو صعانية أو حوج قلبات مامول ونقول إنسانه كليه توه حنو يدلنا نهاي ضد كتير إنسان أو دبعة إنسان نوع كستوى هذا إيجا إنا دي عنها أولئك نقولاتان بالربا ضد كنا مركز ويدين لكن نقولناه وهكذا أوتشريا حدانو نهاي عريامينت أما أمد تاك تدارن maamul idinka noo ahay ma qolo kala noo diraysaan oo aanu ambiil idinka qaadana mase idinka yaqanaha waa waxaad noola kacdeen oo waxaad leedihiin dadku ha kala yaraado marka waxaad yeelaysaan waxaanu idinka codsanaynaa in aad dadka liita oo maatada ah maamulkiina tustaan oo u muujisaan oo idinka maahe maamul ilaahay mooye maamul kale oo bilo aadan ayan lahayn yacnaha aad tustaan idinkuna aad maamulkoodii tihiin inaad tustaan baanu doonaynaa dhegaha ka maqashiiya qalbiga u geliya nin waliba wuxuu jecel yahay markaasuu helayaa haddii aad nabcaataan dadka jilicsan idinkana ilaahayna waa idin nabcaanaya
ummaduna waa idin dhacaysaa. Salaamu calaykum. dowlad goboleedkan Jubbaland dadka naafada ee degan oo dadka loo liiskaraysan ay yihiin 2485 qof oo gobolada u kala qaybsan inkastoo gobolada qaarkood aan taginay wixii uu noo soo sheegay yihiin Kismaayana ay 1420 sii marayaan hadda waxaa dadka noocan oo daayarta oo noocaas oo naafada ah ku jira 245 dadka waxaa ka mid ah ninkan gabadhan aad arkaysaan dad ka sii daran dad labada gacmood la oo labada lugood la oo labada indhood la baa ku jira gabadhan aad arkaysaan baa ku jira dad noocaas ah ku jira dadka noocaas inaan wax u ururin u qaylinaan dabcanay awoodiina way noo diiday maamulkiina wuu na soo eegi waayo isaga mashquulsan hay'adihiina ma garanayno xaaladooda aad uma garanayno laakiin maamulka shaqada mashquulka haysta waan ognahay maamulka isagoo curdan haddana mashquul badan iyo dib u heshiisiin iyo nidaam buu ku jiraa hay'adihii shaqadoodii ma aragno dad meel degan oo wada xoog leh unbay u kacaan oo barakacal badan nala soo diray bay dhahaan barakaca way ku jiraan naafada meelba way ku jiraan laakiin dadka noocana ma soo agmarayaan mana u imaanayaan waxay leeyihiin barakacaas dadka yaacaya magaalada ka shaqaysanaya daba yaacayaan arrintaa ayada dadka islaamka ah ee eegaya oo shaashadan ka fiirsanaya waxaan ka codsanaynaa meel kastoo joogaanba dadka noocaas oo hadda inta noocan u fadhida ay gaarayaan 70 qof ay gaarayaan haddii ay u baahdaan aan u soo ururin doono dadkaas inay u soo tabarucaan oo akoonka wax ugu soo ridaan oo ay il raxmeed ku eegaan kii zaka la baxaya kii sadaqa la baxaya kii gobolka naga joogay ee xishoonaya $100 la bixi lahaa in ay akoonka loogu soo rido sida ganacsatada Jubbaland ee Kismaayo waxaan ka codsanaynaa naafada gacan bixi baad ku haysaan ay ka qaada ilaahay baan ku dhaarinaa daartaan aniga soo marinaa daartaan laakiin naafada ururiya waxay intaas ayaan dhihlaa wabillahi waxa dadka waayaan daran qofka maamulkan curdanka ah iyo dadka dhagahadagan sheegaynay kale iyo hay'adahaas aan ka calaacalayno iyo dadkaas qofka u dhaxeeya ee inuu muxuu ahaay wax uga raadin raba ee aan awood lahayn isaga laftiisa curyaana ninkaasna wuxuu qabaa dhibaato qabaa marka ilaahay dhibaatada naga saaro ilaahay dhibaatada naga saaro dhibaatada ilaahay baa saari kara ilaahay maamulka naga ha toosiyo maamul garaadow oo muxuu ahaay shaqeeya Allah ka dhigo hay'adahana ilaahay xaqa ha garansiyo hay'adaha dhab socdo la xisaabto maamulku waxaan ka rabnaa inuu hay'adaha la xisaabtamo hay'adaha gobolka jooga lama xisaabtamo inuu hay'adaha la xisaabtamo hay'ad walba waxa laga yaabaa inay 5% ay meelaha ku seeseedo inta kalena inay Nairobi iyada ay kala goostaan ma laga yaabaa hay'adaha cadaalad maaha maamulkuna wuxuu ku abni iyo wuxuu ku mashquulsan yahay dib u heshiisiin ku mashquulsan yahay marka maamulku waxaan ka codsanaynaa inuu hay'adaha la xisaabtamo oo hay'adaha mandate-kooda uu weydiiyo oo waxay wadaan uu weydiiyo oo waxa lagu soo talagalay uu weydiiyo oo ku daba galaan man ka codsanaynaa intaasaan dhihi lahaa wabillahi tawfiiq xaflad aan ugu talagalnay in akoon aan ku shaacino naafadu ay leedahay oo dal iyo dibadba aanu wax kaga helo wixii ilaahay qadaro talabaad waxa weeye hay'adaha ka howlgala Kismaayo oo naafada waxba u qaban haba yaraatee saddexaadna waxa weeye maamulka Jubbaland in aanu ka helo xaq iyo xuquuqda aan ku leenahay oo kamid ah kootada aan ku leenahay shaqooyinka wasiirada xildhibaanada aan ku leenahay iyo wixii kale oo markaa aan ku leenahay xaq waxaan ku leenahay cashuurta ka baxaysa dekada iyo qoona laga siiyo wixii anaga markaa suuragal ah oo nala siin karo sida daraadeed waxa weeye waxaan u baahanahay in la siiyo dhul maamulku dhulna siiyo ay noo dhisaan in hay'adaha qolka aan ku leenahay aan deganahay waa qol yar oo 5 mitir ah waan ku diiqadoonay in kuma qaban karno xaflad kuma samaysan karno waxba arinta saddexda arrimood ee kamid tahay arrimaha aan xafladda u dhiganay